dib u dhac ayaa ku yimid shirkii maanta ay ku balansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed taasi oo la filayay in uu maanta ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shirkan oo u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu si rasmi ah ugu furmo toddobaadkan dhexdiisa markii maanta dib loo dhigay kulankii maanta, waxaana la filayaa in maalinta beri ah ee magaalada Muqdisho ay soo gaaraan madaxda dowlad goboleedyada Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kuwaas oo si weyn qayb ugu ah wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka. Shirkan ayaa waxa uu ka dhici doonaa xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku tilmaameen in dhinacyadu ay ku qanacsan yihiin. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dadaal xoogan ay ku bixisay in kulanku uu ka dhaco xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, hase yeeshee arrintaas ma aysan hirgelin kadib markii dhinacyada mucaaradka ay ku adkaysteen in aysan ku kulmi doonin xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ajendaha shirka ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro xaaladda guud ee siyaasadda dalka, gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana si weyn loogu doodi doonaa hanaanka doorashooyinka, dib u eegista dastuurka, amniga iyo midnimada dalka. Dhinaca kale, mucaaradka ayaa isku diyaarinaya ka qaybgalka gogosha wadatashiga qaranka ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka uu ku dhex mari doono magaalada Muqdisho, iyaga oo dhinacyada ay ku soo laabteen magaalada Muqdisho, waxaana si weyn loo sugayaa shirka magaalada Muqdisho ka dhici doono isla markaana dhex mari doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. Warbixinadan iyo kuwa kale oo ka xiiso badan waxaad maalin walba kala socon kartaan Garsoor TV si aad noogu xirnaato mar walba ay kugu soo dhacaan. Subscribe saar janaalka, muuqaalka like saar, lana sii wadaag asxaabtaada. waad mahadsantahay.